haddii aad rabto inaad samayso line ama xariijin oo horizontal ah adigoo aan shaybiska adeegsan kaliya waxaad qoraysaa calaamada dash ama hyphen loo yaqaan ayaad 3 jeer qoraysaa kadibna waxaad leedahay enter kadibna waxaa kuu samaysmaya line oo horizontal ah sidoo kale haddii aad 3 jeer qorto calaamada underscore waxaa kuu samaysmaya isla line-kii oo laakiin bold ah sidoo kale haddii aad qorto calaamada xidigta loo yaqaan 3 jeer haddii aad qorto waxaa kuu samaysmaya line oo dhibic ah sidoo kale haddii aad qorto calaamada hash ta 3 jeer haddii aad qorto kadibna aad enter tiraado waxaa kuu samaysmaya 3 xariijimo oo is saaran sidoo kale haddii aad rabto inaad qorto 2 xariijimood oo is saaran kaliya waxaad 3 jeer qoraysaa calaamada equal ayaad 3 jeer qoraysaa kadibna markaad enter tiraado waxaa kuu samaysmaya 2 xariijimood oo is dul saaran sidoo kale haddii aad qorto calaamada tilde loo yaqaano 3 jeer ayadana waxaa kuu samaysmaya line oo zigzag ah